iyo xildhibaanka aanu ku leenahay dawladda federaalka Yuusuf Xayle haddii uu maqlayo annagu ismaamul goboleedka waa nalagu dulmi maamulkuna ma soo dhaweyn hal maalin nalama martasoorin halkan lagu rudeena jawaab aanu karno SSC baanu jawaab karnaa anagu ma geeyno haddaan nahay beesha Tumaalo lagu sameeyay ina garaad Ismaaciil gurigaagi waa soo mar saako dhan waa joog haddana halkan aanu ku simanna horeyna waad noola ballantay waxaan halkan nagula ballamay safiir jaamac baa halkan nagula ballamay waxa weeye cadaalad darrada nalagula kacay waxa weeye mid maaragtay gobolka ka dhacday weeye cadaaladda waxa weeye adduunka ku taagan annagoo ah beel soo jireena oo dalka gudihiisa degan oo beel firiirsana in maaragtay magaca iyaga la iska indhatiro taasi waxay ka mid tahay cadaalad xumada gobolka ka socota weeye arrintan uu ka hadlay hadda nabadoonku ka hadlayna waa arrin meelo badan gaadhi beesha caalamka oo dhan aanu duldhigi aanu maaragtay gaadhsiin doono cadaalad xumada ka dhacday gobolka markaa saas darteed waxaan leeyahay xeedhadan aad dul fadhiisateen oo inta gobolka ku abtirsata iyo inta raacsan aad dhinacyada ka fadhidaan waxa weeye haddii aad annagii markaa albaabkii markaanu soo gargaracna laga furi waayo taas waxay tahay cadaalad xumaday ka mid tahay saas darteed walaalayaal cadaalad xumadu saa kuma socod maaragtay cadaaladdu ilaahay dadkan islaam weeye ilaahay wuxuu yidhi qad arsalnaa rusulnaa bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaab waalmiisaan waanzalnaa alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wamanaaficu linnaas marka cadaaladda ilaahay manigiisa wuu sheegay qur-aankuu ku sheegay in maaragtay kitaabka qur-aan cadaaladdu maaragtay loo soo dejiyey kitaabka qur-aanka cadaalad weeye miisaanku cadaalad weeye meeluu kaga hadhaya hadday xukun tahay iyo hadday maaragtay wax la kala beeganaya tahay meeluu inagaga hadhaya ma jiro halkanna lagu rudeena jawaab baanu karno SSC baanu jawaab karnaa bismillaahi raxmaani raxiim annagoo ah beesha Tumaalo hadda ka horna saxaafad baanu qabannay odayaasha waanu ka wada hadalnay garaadada waanu la kulannay qofka la iskama eedayo garaad jaamac garaad Ismaaciil waa sunnim gurigiisaanu ugu nimi si fiican baanu wada hadalnay uu nagala hadlay arrinta Khaatumo iyo Maakhir wuxuu 45 hore la furi maayo xildhibaanadu waa kordhayaan ha kordheen xildhibaanadu waxa weeye wixii xagga ku soo kordhana kursigiini waa leedahay hadduu raaco qolada sanaagee warsangeli huwanta uu raacana ka doonay ballantii baanu ku joognay 2 casho iyo 3 cashoba waxaanu ku wareegaynay gurigiisa haddeer guriga hortiisa baanu ku qabannay saxaafadeedii ugu horeysay anagu ma geeyno haddaan nahay beesha Tumaalo lagu sameeyay ummadda iyo xildhibaanka aanu ku leenahay dawladda federaalka Yuusuf Xayle haddii uu maqlayo ama saxaafadayada maqlayo annagu ismaamul goboleedka waa nalagu dulmi waxaanu doonaynaa in dulmiga cidii ka dhiidhiyeysaba ay ka hadasho mudnaanshaha aanu ku leenahay inaanu helaanu doonaynaa dad deegaanka u dhashay Sool iyo Sanaag iyo Cayn baanu nahay waxaanu dhannahay 80 qof guryaanu degannahay maamulkuna ma soo dhaweyn hal maalin nalama martasoorin waxaan halkan nagula ballamay safiir jaamac baa halkan nagula ballamay waanu u nimid lambaradayadii waa qortay waa wada hadalay waxaanu u sheegnay dhibaatada halkan naga haysa inaan nala qaabilin inaan wax dhaqaalaha nala siin inaan guri nala geyn ilaa kontomeeyo oday oo ka yimid labada maamul inaanu nahay lambaradayadii waa qortay jawaab dambana nagama siin waxaanu leenahay walaalow noo soo celi lambaradayadii sawirradayadiina noo dhilid gare nagu sin baanu leenahay dib noogu soo celi mardan waxba noogu qabanayn dib noogu soo celi intaas khasaare noogu filan jaamac saasaan leenahay waxaan leeyahay ninka la yidhaaho wadaadka la yidhaaho ina garaad Ismaaciil gurigaagi waa soo mar saako dhan waa joog haddana halkan aanu ku simanna horeyna waad noola ballantay haddaad nala ballantayna ballankii annagoo aad nagula ballantay ma aad oofin axdiga aad martay ma aad qaadin kuraasta
qaybtaannu leenahay labada maamulba kuraas baannu ku leenahay mid keliyaannu codsanay inna la siiyo kalena nalaga badaayo haddaannu beesha tumaaloodnahay garan weyda aydu maadaama aad garan weydeen annaguna si aad u garan weydeen baannu idiin garan weyn si aad noo garan weydeen oo noo arki weydeen idiin arki mayno xurmo haddaad doonaysana idinkuma xurmaynayno waxaabaannu aragnaa kuraasta in la gato oo ay lacag meesha ku joogaan oo la iibsado waa xaqiiqo weeye waayo sababtay kuwa laalaada baannu dee arki lahay waxaan leenahay hawlaha dib ugu noqdo hawlaha dib ugu noqdo baannu idin leehay samirka iyagii waa batay waxaannu joognaa 2 bilood wax hanti oo nala siiyey ma jirto ergooyinka guryaha la geynayo kuma jiro ee aad geyseen bannaanka annaga wax iyaga istabirayn hadday shidaal tahay iyo hadday ilig tahay iyo hadday cod tahay ba annaga istabirayn